ciyaaryahanada kale ah Jadon Sancho, Marcus Rashford iyo Bukayo Saka ayaa lagu beegsaday baraha bulshada kadib markii ciyaartu ay dhamaatay iyadoo bogagooda bulshada ay ku leeyihiin lagu qoray hadallo aad u badan oo midafaqooq ah. Talyaaniga ayaa guusha ciyaarta ku helay rigoorayaal iyadoo dhabanada la haystay ka gadaal markii ciyaarta waqtigii caadiga ahaa iyo waqtiga dhaareedka ahaa ee lagu daray ku soo idlaatay 1-1. taasi waxay haadaan ka riday rajadii Ingiriisku ay kala haayeen inay ku soo afjaraan 55 sano oo ay sugayeen koob weyn oo ciyaaraha ragga ah. booliiska Ingiriiska ayaa baaritaan ku sameynaya hadalladaasi midabta koorka ah oo si weyn loo dhaleeceeyay. fariin uu soo dhigay barta Twitterka, ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson waxa uu sheegay in Ingiriisku ay mudan yihiin waa kooxda ciyaartoyda ah sida haliyeeyo in loo sharfo oo aan baraha bulshada lagu aflagaadeen, isla markaasna kuwa mas'uulka ka ah falalkaasi ay isku yaxyaxaan. Amir William ayaa isna sheegay in uu ka murarad dilaacay caayda cunsurinimada huwan ee lagula kacay ciyaartoyda Ingiriiska ayna tahay wax gabi ahaanba aan la aqbali karin, isla markaasna ay tahay in ay u yeeshaan dulqaad falalkaasi foosho xun.